Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Dhammaan kusoo dhawaada Softgate Academy, gaar ahaan videoga shanaad, casharka shanaad ee maadada SQL Server, kaasoo loo isticmaalo in lagu programmiyo database-ka ama xogkeediyaasha. Maanta casharkeena waxaan soo jeedinaya anigoo Maxamed Isaaq Xasan. Waxaana ku qaadanaynaa 6 qodob oo hoos noogu qoran hadduu Ilaahay yiraahdo. Casharkii noogu dambeeyay hadda waxaan soo aragnay waxa lagu magacaabo DML ama data manipulation language. waxaana ku soo aragnay basic data manipulation language iyadoo la isticmaalayo insert, update iyo delete iyadoo la isticmaalayo soo aragnay. Haddana waxaan qaadanaynaa iyadoo advance ah ama videoga labaad iyadoo ah ayaan qaadanaynaa. Marka hore waa isla aragnay qaabka loo soo kiciyo wax lagu magacaabo SQL-ka ama SQL Server 2014 qaabka loo soo kiciyo waa isla aragnay. Marka waxaan rabnaa inaan comment ayaan iska saaraa qaybtaan oo dhan. Okay, comment ayaan saaraa qaybtaan oo dhan. Commentina waa isla aragnay aan filaa videoyaashii ama casharadii hore, muuqaaladii hore. Comment waa qayb ka mid ah code ka mid ah code-ka waayo aadan rabin inuu shaqeeyo, ama haddii kale waa information yar oo lagu daro code-kaaga ama code-kaaga lagu daro, kaasoo tusinaya ama sharaxaya waxa uu qabanayo code-kaas waxa uu qabanayo. Okay, marka ugu horeysa marka waxaan rabaa inaan isticmaalo engine-kii saxda ahaa ama database-kii saxda ahaa, kaasoo lagu magacaabo Softgate 1. Softgate 1 marka wuxuu noo ahaa database-keenii noo samaysnaa ayuu noo ahaa. Isaga ayaan rabnaa inaan isticmaalno. Isaga ayaan rabaa marka inaan isticmaalo. Okay. Marka waxa ugu horeeya aan samayn doono waxay tahay wax lagu magacaabo inaan horta ogaano meeqa table ayaa noogu keedsan database-keena. Meeqa table ayaa noogu keedsan database-keena inaan ogaan ayaan rabnaa. Marka waxaan qoraynaa select count. Command-gan ayaan qoraynaa markaan rabno inaan ogaano wax lagu magacaabo inta table ee noogu keedsan database-keena. Marka hadda hal table ayaa database-keena noogu keedsan, kaasoo ah admission ayaa halkan noogu keedsan. Marka wax ugu horeeyo aan ogaan doono waxaa ka mid ah marka aan rabno inaan ogaano in insert aan samayno table-keena, insert inaan ku samayno ayadoo la isticmaalayo wax lagu magacaabo qayb ka mid ah keliya, iyadoo qayb ka mid ah column-yada iyadoo data la gelinayo keliya inaan isticmaalno keliya. Marka waxa ugu horeeya isticmaalayna waa qayb ka mid ah inaan gelino keliya, insert data using only some columns. Marka tookada hore waxaa soo aragnay insert into iyadoo la sameynayo, kadibna table name-ka qor, kadibna values dheh, kadib waxaad ku xareysaa name, magaca ugu horeeya waxaad ku xareysaa Cali Cumar Caasho tusaale deeqa dheh, kadibna classka waxaad ku xareysaa inuu yahay class 10, kadibna class number waxaad ku xareysaa inuu yahay 44. Okay, ka waran marka haddii aan rabo keliya inaan hal column qiimo aan geliyo, maxaa dhacayo? Hal column keliya aan rabaa inaan qiimo geliyo, maxaa dhacayo? Execute aan dhaho, wuxuu ii soo saaraa in definition-ka ama table-ka aan rabo inaan datada geliyo iyo datada aan provide gareeyay ama aan bixiyay inaysan isku mid ahayn. Table-ka aan rabo inaan wax ku xareeyo wuxuu ka kooban yahay 3 column, anigana waxaan rabaa hal column keliya inaan geliyo. So marka waxaan u baahanahay marka inaan samayn karo arrintaas. Waxay ku khasban tahay inaad samayn kartid arrintaas oo hal column keliya wax geli kartid. Table-ka waxaa laga rabaa marka hore inuu yahay wax lagu magacaabo nullable waa inuu yahay. Waa inuu yahay wax lagu magacaabo nullable. Nullable marka waxaa laga wadaa waa inuu eber aqbali karaa. Waa inuu eber aqbali karaa. Macnaheedu waxay tahay waa in column-kaas laga tagi karaa. Waa in column-kaas less information ama unknown information uu noqon karaa. Information la'aan waa inuu noqon karaa marka. Okay. Marka waxaan u baahanahay marka maadaama anaga table-lada soo samaysanayna oo dhan wax constraint kuma xirnayn, inuu null noqdo, not null noqdo, nooguma xirnayn. Marka maadaama table-keena basic table iska ahaa, wax constraint uusan ku xirnayn, waan xaray karnaa marka. Okay, maxaan leenahay insert into, waxaan leenahay admission, kadibna waxaan leenahay marka ugu horeysa horta aan soo muujisto marka waxaan leedahay shift iyo home isla qabanay, kadibna waxaan leedahay F5 ama execute aan leedahay. Okay,
insert into admission aan leedahay kadibna column-yada aad rabto inaad wax gelisid name iyo class kaliya ayaan rabaa inaan wax geliyo kadibna waxaan leeyahay values qiimayaashaan igu xareey qiimayaashaasoo kale ah namekan waxay ugu xareysaa deeqa class numberka ama classkana waxay ugu xareysaa class 11 igu xareey okay hadda marka execute aan sameyno marka semicolon waa isticmaali kartaa waana ka tagi kartaa no problem dhib ma lahan okay execute okay indaatadii noo xareey okay marka waxaan su'aal idin weydiinaa videoga post waxaan su'aal ku weydiinaa maxaa gali doona marka rowgaas hadda naga banaan oo ah class numberkii aan ka tagnay maxaa ku xareysmi doono maxaa noogu xareysmi doono marka okay maxaa noogu xareysmi doono null value ayaa noogu xareysmi doono okay oo jeeda soma hadda waxaa la xareeyay deeqa kaasoo classkeedu yahay class 11 class numberkeeduna yahay null ayaa noogu keedsan okay kala bedelna marka aan sameyno class iyo class number aan xareyno kaliya class number aan xareyno kadibna stringiga ka bedelno class number aan dhahno 88 execute sidoo kale wana shaqeeyay sama wana shaqeeyay marka okay wana shaqeeyay haddana okay magaca ka tagna marka kaliya aan xareyno wax loo magacaabo class iyo class number kadibna classka meesha aan gelino class v execute soo door select all from admission kadibna ujeeda sama mar waxaan ka tagnay magacii oo marka ugu dambeysay mar waxaan ka tagnay column dhexe marna waxaan ka tagnay column ku dambeeyo mar qaabkaas ayaa loo xareyn karaa sidoo kale videoyada hore waxaan kusoo aragnay haddaan rabno inaan soo muujino magacyada kaliya waxaan sameynaynaa select maxaan sameynaynaa name from maxaan leenahay admission maxaa soo muuqan doona marka kaliya magacyada ayaa kusoo muuqan doona kaliya magacyada ardayda ayaa kusoo muuqan doona marka semicolon ku dar ama ka tag waa isku wada mid semicolon hadda ku dirta ama ka tagto isku wada mid laakiin luqadaha kale programming inta u badan waxay ku diidayaan in semicolonka laga tago way ku diidayaan oo kuma ogolaanayaan marka okay inserting marka saas ayaan u sameynay marka haddii marka laakiin hore waxaan ku arki doonaa videoyada soo socdo ayaan ku arki doonaa haddii constraintiga videoga muuqaal constraint la yiraahdo ayaan ku arki doonaa haddii constraint marka uu jiro meesha ama caqabad ay jirto caqabadaasoo u diideysa tableka ama columnkan u diideysa inuu null qaato caqabad noocaas haddii jirto caqabadaas waxaa lagu magacaabaa not null ayaa lagu magacaabaa tusaale aan sameyna hadda wax lagu magacaabo table kale oo la yiraahdo finance kadibna aan dhahno name varchar 20 waaye kadibna not null aan dhahno kadibna amount aan dhahno kadib money aan dhahno okay kaliya waxaan u baahanaynaa tablekaan samaysano abuurano ayaan u baahanahay okay tableka waan u samaysan yahay waxaan dhahdaa marka select all from finance finance table uu noo soo muuqday marka okay finance table uu noo soo muuqday okay marka hadda waxaan rabaa marka inaan sameeyo insert into finance inaan dhaho kadibna aan ku xareeyo kaliya wax lagu magacaabo amountiga kadibna amountigana aan geeyo lacag qiimaheedu dhan yahay 8 maxaa imaan doona hadda waxaan u baahanahay inaad sheegtaan maxaa imaan doona execute waxaa imaanayo qaladkaasoo ah columnka la yiraahdo null financiga ma aqbali karo does not allow null value ma aqbali karo etimis marka maxay ka dhigan tahay magacaas lagama tagi karo waa in magac la qoraa waa in magaca laga tagin hadhow marka haddii database adiga aa samaynaysid waxyaabaha laga tagi karo waxyaabaha laga kala tagi karin waa inaa ogaataa marka haddii table aa samayn rabtid
database-na waxaa saldhig u ah oo meesha xogta ku kaydsan tahay table marka muhiimad gooni u leeyahay haddii tablekaas marka xogta la xareyn karo iyo xogta lagu xogta la gelin karo iyo xogta la gelin karin aysan ku qacdayn ama aadan markii hore soo qeexin waxay ka dhigan tahay database-kaaga ama xog keydintaada wax badan ayaa ka qaldan ayay ka dhigan tahay marka okay waxa u gudbaynaa marka qaybta labaad tan koowaad waa xalinay kaliya inaa columnyo qaar aan soo gelino create table using salary isticmaal kadibna waxaa isticmaasha wax lagu magacaabo notional constraint isticmaal notional baa soo aragnay hadda tableka hadda finance ayaa sameynay insert data into tableka geli waa gelinay iyadana waa sameynay ii sheeg kadibna update waxaa isticmaashaa arithmetic operations okay tusaale waxaa noo sameysaa create table payroll noo sameey oo ah mushaar bixinta kadib waxaan rabnaa marka qofka markii bishaar la siinayo in laga ogaado employee name waa kaar aan dhahno 10 iyo ka badanin ama aan dhahno waxay kala duwan yihiin malaya cabirka kaliya kala duwan yihiin iyo size-ka barkaar 20 aan dhaho not null magaca employee-ga every noqon kadibna aan dhaho meesha uu ka shaqeeyo department uu ka shaqeeyo character 10 department uu ka shaqeeyo character 10 department-ga null wuu noqon karaa waa laga tagi karaa no problem dhib ma lahan kadibna aan dhaha marka department uu ka shaqeeyo waa sheegnay department uu ka shaqeeyo kadibna aan dhahno salary-ga uu qaatay oo data type-kiisa yahay money intaan askaga soo koobno haddaan mid ku dari karno aan ku darno wax lagu magacaabo contact aan dhahno oo integer okay kadib table-kan oo baahnay inaan sameyno payroll kadib marka table-ka uu sameysan yahay waxaan u baahanahay marka inaan retrieve ku soo sameeyo table-kii aan soo muujisto maadaama aan rabo inaan data geliyo marka table-ka waxa fiican marka data gelinaysa inuu kusoo muuqaalkiisa aad arki kartaa marka insert into payroll marka values ka ay wax xareynaysto waxa kamid ah employee name-ka wax qaatay waxa la yiraahdaa Axmed Cali ayaa la yiraahdaa department-igu ka shaqeeyo waa IT ayuu ka shaqeeyaa salary uu qaato waa 1000 contact laga xiriirayo waa 2 contact 4 contact laga xiriirayo waa kasa shaqaale kala jira isagana oo la yiraahdo Mursal Daahir shaqaale kala la yiraahdo jiro wuxuu ka shaqeeyaa qaybta marketing-ka ayuu ka shaqeeyaa lacagtu qaato waa 800 ayuu qaataa contact-giisana waa ewer 68 ewer 65 ayuu contact-giisa yahay qof kala jirto oo gabara waxaa lagu magacaabaa magaceeda Amina Ahmed ayaa lagu magacaabaa Amina Ahmed waxay noogu shaqeysaa sidoo kale ayadana qaybta marketing-ka ayay joogtaa ama sales-ka ayay joogtaa ama qaybta sales-ka ayay joogtaa kadibna lacagtay qaatana waa 600 okay marka saddexdan column aan rabaa inaan xareeyo saddexdan row okay payroll values okay maxaa marka tartiib baan u fiirin wax qaldan the number of columns for each row in a table value constructor may be the same okay waxaa marka ku xali karaa inaan sameeyo wax lagu magacaabo inaan soo muujisto marka hore table-kayga soo muujiyo kadib employee name department salary-ga iyo ka tagay okay execute kadibna select wajid sama marka shaqaalaha igu xareysan oo aan rabo inaan xareeyo marka waxaan rabaa salary-ga shaqaalaheena waxaa la yiri waa la kordhiyay salary shaqaalaha waxaa la yiri shaqaale kasta lacagtu qaadan jiray ha qaato kala barkeen ha qaato laba jibaarkeeda tusaale qofkii $1000 qaadan jiray $2000 qaato qofkii qaadan jiray 800 1600 qaato qofkii 600 qaadan jiray 1200 qaato maxaa dhacay markaas marka wax dhacay markaas la iska rabo waxay tahay wax lagu magacaabo arithmetic operation ama in xisaabaad la isku dhufto wax lagu magacaabo arithmetic operation oo ah
in xisaab la isku dhufto marka waxa sameeynayna marka salary hore u jiray ayaa waxa ku dhufanaynaa salary kale so marka maxaa dhacay update wax la yiraahdo insert ma aha dadaya insert waa marka new data ay gelinaysid update waa markii previous data ama data markii hore ku jirtay markii wax ka bedelaysa ayaa lagu magacaabaa marka waxa leenahay update kadibna table name ka sheeg taasoo ah payroll marka set waxaan dhahaa salary-ga is equal salary-ga waxa u sad garaysa maxaa yeelay wax la bedelo magaca maaha department-iga ma ahan contact-iga ma ahan waxa bedelona waa salary-ga marka waxaad ku samaysaa marka salary-ga waxaad ka dhigtaa is equal salary-ga hadda jiro lagu dhuftay calaamadaas lagu dhuftay multiplication ayaa lagu magacaabaa star lagu dhuftay 2 maxaa soo baxay marka isleedahay okay execute saddex qofood ayaa la bedelay xogtooda kadib waxaa leenahay marka select all from payroll dhammaan marka shaqaalaha payrollka iyo fiiri ku keedsan table-ka la yiraahdo okay ma soo baxday hadda qofkii 2,000 qaadi jiray muxuu qaatay qofkii $1,000 qaadi jiray 2,000 qaataa qofkii la qaadan jiray 800,600 qofkii qaadan jiray 600 na wuxuu qaataa 1,200 soo marka sidaas ayaa table-kaaga ugu sameyn kartaa wax lagu magacaabo manipulation ugu sameyn kartaa waxa ku sameyn kartaa wax lagu magacaabo manipulation ayaad ku sameyn kartaa marka shaqaale goolin waa bedeli karnaa mishaarkiisa shaqaale kale goolin waa bedeli karnaa waxaan leenahay update table-ka magaciisa sheeg payroll set waxaan leenahay salary-ga inuu la mid noqdo 2,000 qaataa ninkaas waxaa la dhahayaa soo celiyo lacagtiisa 500 ha laga dhigo where marka emb name badana waxa lagu raadiyaa wax lagu magacaabo id marka id ina ku xirtaa fiican is equal hadda marka waxa leeyahay where emb ama employee id oo la mid yahay intaas kaliya ayaad leedahay marka hadda laakiin waxa leenahay emb name oo laga soo gaabiyo ama employee name laga wado okay meesha Ahmed Ali meesha magaca uu ka yahay Ahmed Ali fadlan waxaad iga dhigtaa lacagtiisa $500 ka dhig meesha markii hore ku qaadan jiray 2,000 lacagtiisa ay noqotay okay marka waxaan baahanahay inaan soo muujiyo ayaan u baahanahay select aan dhaho all from payroll kadibna marka aan shift iyo home ka qaban kartaa execute kadibna Ahmed Ali mushaarkiisa wuxuu noqday $500 ayuu noqday waa kordhi karnaa haddii ku dhufasho aan rabno haddii qaybin aan rabnona waa u qaybi karnaa okay marka intaas baa soo aragnay inta u badan ii sheeg inaa wixii koodka ahaa ama koodka inaan qoratid isku day okay waxaan sameynaynaa maxaa marka noo dhiman update waa sameynay delete from iyadoo la isticmaalayo delete marka qaabkee wax loo tirtiraa marka waxaan leenahay هذا meeqa table had noo samaysan hadaan rabno inaan ogaano qaab kale oo ku ogaa kartaa inta table ku samaysan ma kaliya meesha object explorer ka soo hor u soo sheegnay object explorer ka tagaysa kadibna database-yada laba oo kala baxaan system databases iyo user databases system database waa database-yada uu qofka systemka dhisay ama shirkadda systemka leedahay iska leedahay ay soo dhistay sida master database model temp db kamid ah هذا فرتيد واكسا ماستر موديل MSDB إتم DB كميدا أيوه user databases أو لو database هذا يجرا ما دام أنا قاعد صفت جد وانا استعماله إنه أنت table نو كتسن هل كان أيوه نو كنا so مركا admission finance payroll صدق هذا table أياه نص بس هذا ربنا مركينا أو أنا حلينا select count as table list يعني هاي from sys dot tables okay meeqa table ayaa ii samaysan marka okay 3 table ayaa ii samaysan 3 table ayaan ku baashaari karaa marka waxaan leeyahay delete from waxaad tirtirtaa finance maxaa dhacaya hadda marka maxaa dhacaya fiiri finance table-ka markii horeba wax data ah oo noogu jirtay ma jirin finance table anaga waa samaysan kalimaane wax data ah noogu keedsan ma jirin laakiin hadda haddii aan data geliyo hadda wuxuu dhahay soo ma fiiriya delete from finance haddaan dhaho oo finance wax ka tirtir haddaan dhaho waa zero row affected soo ma laakiin hadda haddaan qiimo geliyo oo aan iraahdo insert aan sameeyo intuu aan dhaho finance kadibna magaca aan geliyo aan dhaho cabdi aan dhaho cabdi $100 qaatay aan dhaho
oo datadan ay xareysmato si caadi ay ugu xareysmato okay oo datadan ay store ay u sameyso ama ay gasho table-kayga ay gasho haddaan sameeyo delete from finance maxaa dhacayo one row affected haddii kun data meesha ay ku jirto kunkaas data ayaa lasoo sameyn doonaa ayaa la tiri doonaa haddii 100 ay kugu jirtana 100kaas data ayaa baxaya hadda isticmaash wax lagu magacaabo delete from okay maxaa marka sameynayna marka table-ka hadda noo dhisan yahay laakiin structure table-ku noo jooga delete iyo drop waxa kala duwan waxay tahay drop structure-ka iyo data-da waa isla tuure oo hal mar ay wada baxay laakiin delete waxa waaye only data-da ama data-da ku jirto table-kaaga ayay ka saaraysaa datadaas ayay ka saaraysaa okay sidoo kale hadda waxaan dhihi karnaa wax lagu magacaabo table-kii hadda aan samaysanay fiiri payroll-ka table-ka hadda aan samaysanay payroll-ka haddaan soo bandhigno waxaan noo kaydsan 3 qofood sama waxaan rabaa inaan wax qayb kaliya ka tiro waxaan rabaa mursal oo kale inaan tiro waxaan leeyahay delete from payroll leeyahay where emb waxaa lagu dhahay mursal shaqaalaha waa laga saaray soo marka table-ka inuu ka baxaa la rabaa where emb name waxaa leedahay is equal mursal daahir okay meesha mursal daahir shaqaalaha mursal daahir la yiraahdo table-ka payroll ha laga waayo table-ka payroll ha ka baxo okay hadda marka waxaan leeyahay select all from payroll marka hadda payroll marka la soo bandhigo fiiri hadda marka payroll la soo bandhigo soo marka mursal saas ayuu u baxay haddaan isticmaalo ka waro delete from payroll kaliya oo exclusion aanan ku sameynin midkan haddaanan because intaan wixii sharti ku xiray wax la tiraayo delete from payroll waa dhammaan wixii table wixii data oo payroll ku jira iga tir laakiin where meesha waxa iga tirtaa kaliya employee name shaqaalaha magaciisa uu ka yahay meesha uu ka yahay mursal daahir kaliya iga tir laakiin haddaan intaan kiciyo maxaa dhacayo dhammaan waxaa baxayo wixii ku jiray payroll table ayaa meesha ka baxayo marka waxaan rabaa inaan sameeyo drop table finance inaan dhaho sidoo kale inaan dhahaan rabaa drop table payroll okay labadood marka waa inaan tiraa marka okay laba commands ayaa la isla kiciyay hadda marka waxaa sameysaa waxa lagu magacaabo refresh da inta imaaw databaseska imaaw refresh da okay marka la ku celi refresh da kadibna marka fiir softgate imaaw tables imaaw hal table kaliya ayaa kugu jiro kaasoo dhiidhaado admission marka hadda maxaa ku jira fiiri admission waxaa ku jiro hadda waxaa ku jira sooma fiiri admission imaaw admission data ugu jirto sooma haddaan sameeyo marka delete from admission haddaan dhaho dhammaan waxaa baxayo datada ku keedsaneed taasoo ah 6 qofood halkaas ayay ku baxaysaa drop table admission haddaan dhahana okay hadda marka meeqa table ayaa database-ka ka kooban yahay marka hadda waxaa u baahanaa inaan ogaado marka ilaa maadaama maanta dhan table aan tirtireynay meeqa table ayuu ka kooban yahay marka meeqa table ayuu database-keena ka kooban yahay marka okay waa 0 wax table database-keena ka kooban yahay saa darteed marka waxaan tuuri karnaa waxa lagu magacaabo drop database softgate 1 okay haddii execute aan dhahno maxaa dhacay fiiri dhanka execute ka fiiri soo sheeg wax dhacay videoga post muuqaalka kadibna dhanka ay sheeg maxaa dhacay okay haye waarto wuu ka diiday soma okay aniga hadda way diidaa because maxaa yeelay database markaas la isticmaalayo lama tirin karo kursi ku fadhiisto markaas ma jibin kartaa may waa ina ka kacda kursigaas markaas soo shee loo kaca marka waxaan leenahay use master waxa isticmaashaa database-ka la yiraahdo master isticmaal kadib marka master joogo drop database softgate 1 dheh hadda uu ku shaqeeyay haddaan dhaho marka use softgate 1 haddaan dhaho maxaa dhacayo nothing wax jiro soma softgate does not exist softgate marka wax jiro ma ahan softgate wax jiro oo database hadda la isticmaali karo oo shaqeynayo ma ahan sidaa darteeda marka iyama shaqeynayo marka aad baa mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaad wax badan kala faa'iideen wax badan kala soconno
meesha hoose oo notificationka meesha hoose waxaan ku soo dhigaa koodka ayaan soo dhigaa waxaan rajeynayaa inaad subscribe saartaan kanaalkeena Softgate Academy aniga Maxamed Isaaq Xasan waxaan leeyahay kulanti wacan casharadeena lixaad aan isla socono wixii su'aal ana emailka noogu soo gudbiya insha Allah haduu ilaahay yiraahdo